Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum Soomaalida. Channelka ana badnina channelka ku xidhan. Sanad wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan. Sanadka cusub insha Allah waxaan doonayaa inaan sii wadno aqoon isweydaarsigii kala soo tabin jirnay channelka soo tabin jirnay. Maanta waxaan doonayaa inaan Soomaalida uga digo aan soo bandhigana arrimihii ana Soomaalidu ka ilbaxayn dhowrkii sano ugu dambeysay imika ilaa imika 10 sano wax ka badan 20 sano wax la yiraahdo G4JAC amba la yiraahdo ACN oo isku mid koona amba pyramid schemes wax sii jiri jiray dadka lacagta ka waantoobin haddana sanad kastaba lacagtii laga dhacayo taasaan doonayaa inaan ka waaniyo maanta weliba gaar ahaan magaalada Birmingham waxaa soo gashay wax la yiraahdo CJ on style inaan ini baro waxay tahay ama maanta ma soo ogaaday dhowr saacado horteed waanan ku ballan qaaday inaan video soo sameeyo dadka uga digo malaha dadkii way dhowhan yihiin iyagoo og sidii loo soo dhacay forex sidii looga soo dhacay ACN sidii looga soo dhacay kuwa kale sidii looga soo dhacay OneCoin oo iyaduna crypto ahayd taasina nooc kastaba ujeedada lagu garto muxuu yahay pyramid scam waxa weyn mar alliya marka laga dalab ay ku jirto saaxiibka amba familigiina amba qofka garanaysid ku soo darso lacag meel kale la yiraahdo markaasiba waa inaad ogaatid inay scam ku jirtid lacagtaada ka khasaartay hooyooyin badan oo carruur xanuunsanaya amba carruur yar korinaya lacagtoodii lagaga dhacayo arrimahaas oo soo noqnoqonaya marka malaha waxay siri Soomaalida badankoodba malaha mild autism wada hayaba oo hadduna qofkii ka waantoobin la soo dhacay haddana ku noqonayo hadda qofkiiyo adarkaysid markaad la sheekaysanaysid qof wax fahmeeyahay haddana ma iimaan liiba waxaan haysta ma garanayo bal horta aan tusoon CJ on style dhowr saacado horteed aan soo maqlay bal waayo aanu yiri waa scam waxaan galay YouTube-ka bal waan yar eegay waxa ka jira aan ku qoray CJ on style clipyada ugu badan ee YouTube-ka waxa arkay inay Soomaali yihiin marka waayo Soomaalida waa dhowr qof adduunyadii minority waa minority over minority yeesha iyo ku sii minority sanay waayo Soomaalida qac marka ugu horeysa waad arkaysaa inaad meel khalad qofkii ku jiro ina kan ba yar dhageystay aqoon uma lihi laakiin waan dhageystay Sell online. eegi uu meesha ka akhriyay yaan si akhriyay marka wuxuu yiri halkan ka gala oridii marka halkan laga galayo waxaad arkaysaa inuu referral code isaga uu lacag ku helayo amba wuxuu doonaa ku helo ama wax ku helo uu yar macmacneeyay meel baa la taabtaabsanay lacag baad ka helaysaa wax suurtagalana maaha taa waa kow lacag saa laguma helo isagana haddayna waxba ugu jiro referral code inuu soo geliyo ma ahayn ani shakhsi ahaantayda taa haddaaba kasii gudbo maxaa haddana waxay u tahay waxay halkiina ku wuxuu yiri marka iyaga akhridid waxay ku leeyihiin wuxuu jiraa 10 sano waxa laga leeyahay Korea South Korea waayahay haan fiirina bal halkee laga leeyahay waxaan galnay website-ka application-kan website-kan halkee laga soo gatay halkee lagu soo iibsaday waxaa jirta very easy internet-ka ka baari kartiin Whois
websiteka ku qoraysaa websiteka magaciisa wuxuu kuu sheegayaa goortii websiteka la gatay. dhowr bilood horteed ayaa websiteka la sameeyey, maaha 50 sano. waxaana laga sameeyey wakaasi South Korea maaha, waa Chinaha. China tuugintii China dhowr bilood lagu sameeyey oo dadka ugu badanna ay tahayba Soomaali la dhacayo, waaba Soomaali. waad arkaysaa inay tahay waxba kama jiraan oo lagu dhici doono. haddana bal haddaa ku yar qortay Google reviewada dadku maxay ka qoreen dhowrkii bilood ugu dambeysay, dhowrkii cisho ugu dambeysay 28 December. waxaa laga qoray dadkan waa dad soo xadi jiray weligood. magac badan bay lahaan jireen, kaasi bay lahaan jireen HPZ token, Jazzbike app, Power Bank app, balaayadaasay ku jirtay. website-kooga si fiican looma dhisin. waana conclusion waxaa la yidhi adeer lacagtiina iska khasaarinina. haddana waxaan eegay halkee websiteka traffiga halkee laga soo galaa iyo u badan oo isticmaala. traffic checker baa jirta. websitekaad gelinaysaa, waxaad gelinaysaa websitekoodii oo qaad geli. waxaana sameynoo dhan wax cilmi ku xidhan maaha, waa wax Google yaalla. 700 qof yaa soo gala ayaantii, dadka ugu badan Hindiya ka soo galaan. 700 qof website ka soo galaan. dee waaba caddaan caadiya, waa dhicis. marka intaasoo caddayma inaana websiteka South Korea laga lahayn, inayba 700 qof ugu badan tahay dadka Hindiya ka soo gala, dadka la dhacayo, iminkana Soomaalida ku xigto. hore loo soo sheegay waxay yihiin tuugini weligood ahaan jireen. domainka goodaadii baa laga iibsaday. tani waa macluumaad facts maaha wax dee adiguba eeg hugiisna tagtid websiteka ku qor, kuu sheegaya waxaa la sameeyey creation date July 24 Shiinaha laga sameeyey. qofku markuu galo muxuu sameynayaa? meel buu taataabanaya, dhig 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 dhig, lacag baad helaysaa. halkee laga arkay internetka meel dhig 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 lacag laga helo? adeer ninkii lacag ay ugu jirtay nasiibkaaga dee lacagteeda kasoo saaran kartid. kii aan lacag gelin welina ilaahay uu kaa badbaadiyey. wax alliyaata wax ay xilli kasta wayna soo martay. wardee ka ilbaxa, subxaan allah. sida isku dhaama. lacag ma jirto iron la iska sameeyo. haddaa lacag doonaysiin dee waa loo shaqaystaayo, ciidaha la guraayo, warehouseha loo galaayo, amba dee professional baa noqdaa, tradero stoogag baa la gataa. haddaa ugu badan tahayna bitcoin gado. taasi waad ku khasaari kartaa, laakiin wax jira waxa kale oo dhan waxbaa la taataabanayo iyo hebel soo geliyo lacag ka qaadiyo lacag geli. waa dhacantihiin, qofku uu dhacan yahay. qofkii doonaya inuu lacag sameeyana dee Soomaaliya qofkii joogana halkaa iyo beryahan waxaan u tilmaamaynaa buura ma tago dahab gacantiisa kusoo guro hadduu helayaba nasiibkiisa. kii Yurubta joogana ha iska shaqaysto, shaqada halkaasaa lacag ka heli. laakiin meel la taataabana dhag 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 laga sii lacag lagu helay ma jirto. walaalayaal sanadka cusub intaasaan kusoo koobayaa. cashirada soo socotana dee aqoon wadaageen wuxuu noqonayaa waxyaabaha soo socda. waxyaabaha anu si fiican u daneeyo waa weliba dee aan aqoon u leeyahay waa bitcoin, wixii cryptoga dee Ethereum iyo waxyaabaha le Polkadot iyo Cardano iyo waxyaabahan jiradii oo iyaguba dadka ku khasaari karaan, dadna ku faa'iidi karaan. laakiin qof hadduu ku yiraahdo war hebelow anuu ayaan taayirado war hebelow meesha lacag gasho oo ay dan igu jirto amba waxaan ka helayo amba ay igu xidhan tahay inaa kugu qalqaalinayo, waan ku dhacaya. walaalow Soomaalidow ka daaya dadka taagta yar horta dhacaysiin, horseedaysiin dhibaatada. waa iniga waaninayaa. dee diintiina mooyaane waxay qabto. haddaan wada diin aan isku diin nahay, islaam tahay, shaaficiin nahay, walaalow dadka taagta yara haddaad meel u horseedid lagu dhacayo aakhirana waad
khasaari adduunyo ma garanaya adduunyada waad faa'idi kartaa adduunyada ilaahay hadduu doono kaagama gurin laakiin aakhiro waad khasaari taasaan insha allah kusoo koobaya waa bilaahi towfiiq iyo ismaqal dambe hadduu ilahay idhahdo